Alright, bal maanta saaxiibayaal aynu isla eegno networking kitka looga baahan yahay qof kasta oo network technician inuu haysto. Boxkan yar waxaa ku jira toolska network technicianku uu u baahan yahay inuu ku shaqeeyo. Kuma wada dhamaystiro qayb ka mid ah bartan ku jirta, laakiin bal inta halkan ku jirta aynu mid isla eegno. Tusaale ahaan kan oo kale waa testerka. Cable testerku wuxuu kaa caawinayaa inaad ku tijaabiso xadhigaaga ethernetka aad samaysay. Marka aad cable ka samayso, testerkan wuxuu ku hubin karaa in wireska si sax ah aad isugu xijisiisay iyo inuu wireku ama xadhigu connectionkiisu shaqeynaya iyo in kale. Okay, waxaan ku xiseenaa punch down tool. Punch down tool haddaad maqasho qalabkan yar weeyaan, waxa weeyaan waxaa loo isticmaalaa in wireska lagu geliyo keystone jack. Keystone jack ama wall jack haddaad maqasho waa meesha maaragtay xadhiga derbiga soo dhexmaray ilaa xadhiga ethernetku wuxuu soo dhexmaraa derbiga Soomaa meesha uu ka soo baxo ayaa la yiraahdaa. Sidoo kale patch panelka meesha maaragtay switcheska iyo xadhkuuska ka xidhmaan ayaa lagu habeeyaa qalabka yarka ah. Okay, qalabkeena saddexaad waxa weeyaan RJ45 crimping tool. Crimper haddaad maqasho waa qalabkan waxaana lagu crimpi garayaa RJ45 connectorka. Marka aad 8 wire sidooda saxda ah aad isugu habayso isuguna xijisiiso ayaa lagu ciijiyaa qalabkan crimperka. Inta bartaa la geliyo ayaa sidaa loogu ciijiyaa. Cable stripper haddaad maqasho qalabkan yar weeyaan, qalabka yar jaalaha weeyaan, waa qalab aad iyo aad u yar laakiin waxtar badan leh. Waxaa lagaga saaraa jaakada kore xadhiga ethernet cable-ka ayaa lagaga saaraa jaakada. Qalabka yar weeyaan. Okay, waxa ku xiga screwdriver-ka. Screwdriver-ku waxa weeyaan marka aad wax furfurayso ama balloon furayso oo dhan ayaad u baahanaysaa. Marka laba screwdriver ayaa la socda kitkan yar. Laba af oo kala duwan ayay leeyihiin. Marka aad furfurayso wax maaragtay ayaad isticmaalaysaa. Okay, kan laftirkiisu waa cable stripper. Barta yar midabka leenta leh ayaa laga bedeli karaa. Kor baa loo soo qaadi karaa. Wuxuu leeyahay meel yar oo makiinad yar buu leeyahay. Kan laftirkiisu waa cable stripper laakiin especially kan waxaa loo isticmaalaa xadhiga coaxialka la yiraahdo ama xadhiga TV-ga oo waqtigii hore loo isticmaali jiray internetka ayaa loo isticmaalaa in lagu gooyo. Sidoo kale wuxuu leeyahay meel yar oo wax jari karta oo tusaale ahaan halkaad crimperka ka qaadan lahayd eed ku soo jari lahayd xadhiga ethernetka waxaa isticmaali kartaa kan inta soo qaadato baad inta aad ka rabto inaad jarato ethernet cable-ka ayaad ku soo jaran kartaa. Okay, saaxiibayaal boxkan yar waxaa ku jira RJ45 connectorka. Kuwani waa madaxyada lagu rakibo ethernet cable-ka. RJ45 connectorku ayaa lagu xiraa 8 wire halka caaga yar buluuga oo loo yaqaan boot uu ilaaliyo connectorka cable-kana siiyo muuqaal nadiif ah. Okay, waxay noogu xigaa xadhiga laftirkiisa, xadhiga ethernet cable-ka haddaad maqasho xadhigan weeyaan. Marka xadhigu wuxuu leeyahay category kale leeyahay. Bartanaad ka arki karaysaa waxaa ku qoran far yar oo khafiif ah ayaa ku qoran category-ga uu yahay xadhigu ayaad bartan ka ogaan karaysaa. Tusaale ahaan haddaan soo muujiyo oo kale halka saad arki karaysaan category 6 ayaa ku qoran. Xadhigan markaa waa cat 6 haddaad maqasho xadhigan weeyaan. Kuwa ka horeeyay oo ka xawaare hooseeyay ayaa jiray oo cat 5e iyo cat 5 ayaa ka horeeyay. Hadda laakiin kana loogu isticmaal badan yahay. Marka la isu geeyo kitkan wuxuu ku hayaa qalab aad ku samayn karto, ku diyaarin karto, kuna tijaabin karto network cables kala duwan. Laakiin hal talo ah ayaan idin siinayaa. Haddii aad baranayso networking, IT support, cyber security, whatever, ha ku ekaan inaad video daawato ama meelaha kale aad ka soo daawato. Isku day inaad samaysato home lab. Tusaale ahaan haddii aad baranayso Active Directory uma baahnid server qaali ah, computerkaaga caadiga ah ayaad ku isticmaali kartaa adigoo VMware ku rakibaya computerkaaga. Kadibna waxaad gurigaaga ku samayn kartaa Active Directory home lab. Waxaad ku tababaran kartaa domain controllers, users, groups, permissions iyo waxyaabo badan oo kala duwan adigoo aan u baahnayn infrastructure qaali ah. Sidaas darteed theory-ga aad baratay u bedel practical. Ha noqon qof kaliya certificates urursada, noqo qof fahmaya waxa uu bartay oo awood u leh inuu practical ahaan u samayn karo. Baro home lab kala duwan samayso kadibna xirfadaada muuji. Follow garee page-kan abyad waxaan ku diyaarin doonaa network iyo home lab kala duwan oo step by step aad u raaci karto.